dadka oo dhahaya malaa'ig ha ku soo salaanto. qof baad salaamaysaa, booqashaad ugu imanaysaa, telefoon baad u diraysaa, wuxuu leeyahay malaa'ig ha ku salaanto. diintu maxay ka qabtaa? dhibaato male, duco fiican wey, duco wanaagsan oo khayr badan wey. malaa'igtu dadka inay salaanto, inay astaan khayr iyo wanaag tahayna kitaabka iyo sunnaduba way sheegeen. kitaabku meelo kala duwan buu ku sheegayoo adduunkana waxaa laynoogu sheegay leylatulqadriga maxaa ugu dambeysay aayadaha axkaamteeda ka hadlahayay salaamun hiya xataa matlaci ilfajr. ereygaas salaamuntaa culimmada muslimiinta qaybo badan baa ku fasiray inay tahay malaa'igta oo dadka salaamaysa. habeen salaam weeye oo malaa'igtaa wareegaysa oo dadka salaamaysa. aakharana ilaahay wuu sheegay waxay uga soo gelayaan albaab kasta, yadkhuluuna calayhim min kuli baab salaamun calaykum bimaa sabartum. nabiguna waa sheegoo nebi aadam calayhi salaatu wasalaam salaantan islaamka markii la barayay malaa'igtaa salaantay, isna u jawaab baa la yidhi waxaa la yidhi taxiyatuka wa taxiyatu duriyatika. xadiidkii xandalata alasiidi fii saxiixi muslimna saacatun wa saaca ahaa. waa kii nabig alay slam maalin uga sheegteenay rasuul markaan kula joogno saan u fiicannahay, qalbiga iyagu nadiif u yahay, waan tegaynaa reerihii, caruurtii, xoolihii, aan ku mashquulayna, wax badan baan halmaamaynaa, amaan munaafiqnimo ku dhacnay. markuu xandala yidhi abuubakarna wuxuu wallahi aniga laftooda saasay haysata. nabi wuxuu yihi sidaas maaha, low taduumuuna kamaa, haddaad ahaan lahaydeen markaad ila joogtaan sidaad tihiin noloshiina, malaa'igtaa idinku salaami lahayd jidadka riwaayadka qaarkood iyo gogoshiina. waxay idinku gacan qaadi lahayd malaa'igtu jidadka. heerkaa haddaad toosnaan iyo iimaanka iyo kaga gaari lahaydeen. waa astaan calaamad fiican. qofku dadku hadday aada u toosnaan lahaayeen malaa'igtaa idin salaami lahayd bu nabig alay slat slam. halka waxaad ka garatay qofka ku yidhaahda malaa'igii ha ku salaanto, toosnaan iyo salaax iyo khayr iyo wanaag badan buu kugu duceeyey oo aada mudato inay halkaa malaa'igtu ku salaanto. dadkii meeshaa joogay waxay yidhahdaan ruwaaddu cimraan bin xusein baa ka mid ahaa.